sheekh leelada qaxtaani wuxuu leeyahay raximahullah oo ka mid ahaa dadka maydka dhintay maydha nin mayda baa lay keenay oo la yidhi maydh meydhitaankiisii markii aan bilaabay ayaa midabkiisii caddaanka ah wuxuu isu beddelay madow sida dhuxush oo kale ah markii horena wuxuu ahaa nin cad intaan argagaxay baan meeshii ka cararo aan ka baxay buu leeyahy anigoo aad iyo aad u baqanaaya nin albaabka taagan baan la kulma waxaan ku idhi qoladii maydkan sidatay maydinkaad ahaydeen markaasuu yidhi haa maxaad u tahay baan idhi wuxuu idhi aabbihii baan ahay waxaan idhi buu idhi maa sha'nu rajul bal ninkan xaalkiisa ka warran muxuu samayn jiray intii uu noolaa qaala haada rajul kaana laa yusalli wuxuu ahaa buuhi ninkani midaan salaada tukan jirin ilaahay baa tabaaraka wa tacaala calaamaddaa ka muujiyey si kuwa nool cibro iyo wax ku qaadasho ay ugu noqoto oy u ogaadaan qofku isagoo ilaahay caasiya haddii uu dhinto inay taasi tahay calaamatun calaa suu'i khaatimatihi nin kale isagana sidaas oo kale waxa uu leeyahay sheekhaasi waa naloo keenay markii aanu bilownay inaanu maydhno ayaa midabkiisu isbeddelay oo uu madoobaaday ninkii uu warramaya wuxuu leeyahay ma sida garhkaygoo kale ayuu u madoobaaday wejigiisu si wuxuu leeyahay maya bal wuxuu noqday aswad mitla alfax madow sida dhuxush oo kale ah dabeetana waxaa bilaabmay buu leeyahay ninkaa in indhihiisa uu ka soo baxo damun axmar dhiig cas ayaa indhaha ka qulqulayay wa ka'annahu yabki dam waalciyaadu billah ilaahay baynu xaalkaa ka magan gelaynaa waxaad mooddaa buu leeyahay inuu dhiig ooyayo ninka caynkaasi waa calaama calaa suu'i alkhaatima dadka qaarkood waxaa ka muuqda calaamaad tusiya inay khaatimadoodu xumaatay marka la aasaayo waxau leeyahay sheekha qore kitaabka la tadkiratu alikhwaan nin ayaa waxaa dhacday in la aasaayey ninkii markii qabrigiisii la dhigay ayaa oo xagga qiblada loo jeediyey ayaa waxa uu bilaabay inuu qiblada ka jeesto oo madaxiisu u jeediyo qiblada mooyaane dhinaca kale haddana waa la jeediyey oo xaggii qiblada loo jeediyey haddana qibladii waa uu ka jeestay waxaa haddana bilaabmay baa uu leeyahay ninkaasi in indhihiisi ay furmeen indhihii laysku laabee laysku celiyey haddana waa mayd oo sankiisa iyo afkiisana dhiig casi uu ka socday oo weliba aad iyo aad u adag waxa uu leeyahay nin kale isagana waxaa dhacday markii qabriga la dhigay ee xagga qiblada loo jeediyey ayaa inta qiblada uu ka jeesta ayaa wejigiisii ciidda uu geliyaa sankiisii buu ciidda geliyey haddana waa la jeediyo xaggii qiblada loo jeediyey waxaana loo dhigay waxyaabo bal isrogga ka celi iyadoo la isleeyahay malaha meesha kala dheer wixiiba inta uu soo dhaafay buu haddana isrogaa madaxiisii iyo sankiisii iyo wejigiisii buu ciidda geliyey markii dambe waxaa la ogaadoo muuqatay ilaa 5 jeer markii sidaasi ay soo noqnoqotay inuu ninkani yahay nin ilaahay tabaaraka wa tacaala khayr aanu la doonin oo ilaahay uu la damcay inuu qiblada ka jeediyo sidii ayaa markaa lagu aasoo ciidda lagu rogay mid kale waxaa dhacday waa qiso ku taalla kitaabka risaala caajila ila almuslimiin axadu culamaa'i almuslimiin baa qisadaa ka warramaya waxa ay ka dhacday waddanka urdun waxau leeyahay annagoo masaajid fadhina ayaa dad baa noo yimi oo waxay yidhahdeen kaalay oo qofkan bal nala aasa waxaanu la yaabnay baanu aragnay maxaad aragteen baanu waad arki doontaanayna mariya yidhaahdeen waxaa markaa meeshii ay ugu yimaadeen nin dhalinyara oo dhintay oo qabrigiisii markii lays yidhi qoda ee la dheereeyey mas uu ka soo baxay mas aad iyo aad u weyni sheekhii qisadan shaahide ayaa ka warramaya sheekhii waxa uu dadkii kula teliye uu yidhi waxaa laga yaabaa meeshan in ahayd god uu mas leeyahay iskaga durkoo meel kale u qoda ilaa 200 oo mitir baanu meeshii hore ka durugnay bay leeyihin haddana maska laftiisii baa meeshii labaadna ka soo baxay godkii hore markii dib loogu noqdayna waxaa la arkay iyadoo maskii aanu ku jirin laakiin uu dalooshaday labada qabri inta u dhaxaysay oo dhulka hoose uu soo maray waxa uu yidhi haddana bal waxaad isku daydaan inaad maska meesha ka soo saartaan biro iyo qoryaanu doonanay bay leeyihin oo maskii baanu meeshii ka soo saaray waxaanu soo dhignay qabriga dushiisa isagoo indhihiisa waxa weeyaan bannaanka soo dhigo dadka eegaya ayuu halkaasi maskii soo fadhiyey dabeeta markii la keenay ninkii maydka ahaa ee qabrigii lagu riday ayaa maskii intuu boodh kiciyey qabrigii isku shubay
dadkii markaa qabriga ku jiray ee iilka gelinaya intay argagaxeen ayaa meesha ay ka soo yaaceen. argagaxa meeshaasi ka dhacay wuxuu leeyahay sheekhu dadka qaarkood ayay naftuba ka baxa ayaaba miir doorsoomay oo lagu qaaday gawaadhida gurmadka degdeg oo dhakhaatiirta loola yaacay. maskii dabeeta inta godkii ninkii uu ugu galay ayaa uu isku duuduubay intuu ka soo bilaabay cagaha ilaa madaxa. waxau leeyahay sheekhu waxaanu maqlaynay masku isagoo jajabinaya ninkaa lafihiisa ayaanu maqlaynay. waa laga yaacay meeshii. muddo kadib baa lagu soo noqday. waxaa la arkay iyadoo maski weli sidii ugu duuban yahay. waxaa xalkuu noqday in la yidhi isaga iyo maskoo isku duuban ciidda un dusha kaga roga oo inaga qariya wey. waa calaama calaa suu'i alkhaatima. waxau ahaa markii dib loo raacay buu leeyahay sheekhu ninkaa dhalinyartahay nin musrifa oo ilaahay tabaaraka wa tacaala caasiya, waajibaadka rabbi tabaaraka wa tacaala uu dirayna ka taga. dadka qaarkood waxaa ka muuqda calaamaad xunxun marka la aase kadib oo xabaasha ayaaba soo tuftoo bannaanka soo dhigta. bal u fiirsa qisadan dhacday wakhtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam. wuxuu leeyahay saxaabiga ladhaha anas ibnu malik sida imaamu albukhaari warinayo: kaana mina rajulun min bani najaar qad qara'a albaqara wa aala cimraan wa kaana yaktubu lirasuuli illah. waxaa naga mid ahaa buu leeyahay nin ka tirsan qabiilada reer banu najaar. ninkaasi wuxuu ahaa nin qur'aanka yaqaanay. wuxuu akhriyi jiray suuratu albaqara iyo aala cimraan ayuu bartay. wakhtigaa waxyigu bilowga uu ahaa ninka baqara iyo aala cimraan yaqaanaa wuxuu ahaa nin cilmi fara badan leh. waxaanu ahaa nin rasuulka calayhi salaatu wasalaam karaani oo ah wuxu qora. faintalaqa haariban xataa laxiqa biahli lkitaab. ninkii shaydaan baa maalin qaato wuu cararay. diintii ayaa uu ka baxay. wuxuu u tegey qoladii ahlulkitaabka yahuud iyo nasaari u tegey. farafacuuh qaaluu hada qad kaana yaktubu limuxamed sala allau alay wasalam faucjibuu bih. ninkii bay darajo u yeeleen iyagoo leh, iyagoo doonaya inay uga faa'idaystaan dacaayadda ay dacaadeynayaan dacwada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. waxa markaa ay leeyihiin kii nebi maxamed wuxuu qori jiraaba ka soo cararee ma khayr baa agtiisa yaalla. bal u fiirsada. ilaahay baase tabaaraka wa tacaala qoorta ka jebiyey oo ninkii nafta ka qabtay. fa xafaruu lahu fawaarow. ninkii bay god u qodeenoo dabeetana ay ku aaseen markii nafta ay ka baxday. fa asbaxat alardu qad nabadatu calaa wajhiha. wuxuu leeyahay anas ibnu malik radia allahu canhu waxa waagu uu bariyey iyadoo ninkii dhulka uu soo tufay oo xabaasha bannaankeedii isagoo yaalla ayaa la arkay. uma caaduu faxafaruu lahu fawaarow. waxay yidhaahdeen markiiba war waanu iska garanaynaayo maxamed iyo saaxiibadii baa ninkan ciil u qabo xalay bay ku soo gudeen oo qabriga ay ka soo saareen oo inay ka argoostaan bay doonayaan. qabri labaad bay u qodeen oo weliba ay u adkeeyeen. dabeeta haddana mar labaad baa qabrigii ninkii uu soo tuuray. dhulkii ilaahay baa diiday. markaasi ayaa ay ogaadeen inuu arrinkani yahay arrin xagga ilaahay subxaana wa tacaala ka socda. wa qiila liaakhar qul laa ilaaha ila allah fajacala yahdii bilghinaa xataa qadaa. qof kalena waxaa lagu yidhi waar laa ilaaha ila allah dheh. dabeetana waxa uu bilaabay inuu heeso. isagoo heesaaya ayaa naftu ay ka baxday. waayo qalbigiisa ayay heesi ka buuxday. laa ilaaha ila allah baanu qalbigiisu ku camirnayn iyo tawxiidka rabbi tabaaraka wa tacaala. carabkiisa ayaan u baran xuska ilaahay ee u bartay heesta iyo xuska shayddaanka. dabeeto qofku xaaladda caynkaasi ah wixii qalbigiisa ku weynaa carabkiisana inta faraha badan leh uu kaga dhawaaqi jiray uu ka xusi jiray ayuunbaa xaaladda caynkaasiya ka soo baxaya.